dowlad deegaanku maxay uga aamusan tahay arrintan والله horta waa su'aal fiican weeyaan oo su'aashaas runtii maanta sidee tahay waan ugu jawaabi doonaa insha allahu tacaala barnaamijkan dowladda deegaanka soomaalida waxaa go-aan loo qaatay shir qabiil aan la qaban karin inaan la isu iman karin inaan arrinta qabiil laga hadli karaynin laakiin sideedaba go-aanka noocaasi cid hal qoluu khuseeya bes waxaa soo raacay qolaa waxaa soo raacay go-aankaasiisa wuxuu khuseeya ogaadinka khuseeya sideedaba ma hadli karaan arrin qabiil kama hadli karaan soomaaliya imankaan shir ogaada lama qaban karo la isuma tegi karo waxaa soo raacay sidoo kale soo raacso idan same problemkaas oo kala qabta laakiin wixii inta ka baxsan deegaanka Soomaalida qabaa'ilka Soomaalida oo dhan shir bay ku qabteen qabiil Soomaaliyeed oo deegaanka degan oo shir qabanin ma jiro laakiin inay shir qabtaan isu yimaadaan beesha ogaadaan oo kala maabsan isu yimaadaan waa dambi weeyaan taas waxay sabab ku muujinaysaa beesha Ciise deegaanka Soomaalida degan tahay deegaanka ka mid tahay waaska Ciise waxa xukuumo hoos tagay waa systemka dowladda deegaanka hoos jooga mar in ka badan ba shir qabiil qabteen